arrinta xanuun kale oo qof qaadan karaa jirin waxaa ka mid ah in magaaladan go-aankeeda iyo waddankan taladiisa in wax laga weydiinayo ninaan ilmihiisana ku noolayn waddankana aan ku noolayn jidkaas ilmihiisa marin iskuul aadin caafimaadkooda isticmaalin inuu haddana masiirka ummaddan go-aan ka gaarayo bal ninkaas arxanka dadkaan u galay muxuu yahay waxaa ka sii xanuun badan dhaqanka uu abuuraya haddana ninka sidaa samaynaya waa la arkaa soomaa jaziiruu degan yahay oo hotel x kaluu degan yahay meeluu joogaa markuu buuqani waxaan sameeyo waa baxaa garoonka baxaa waa tegay laakiin dadka aqbalaya ka xun soomaa ha waxaa ka sii xun nin kaloo waxaa jira ninkaa fiirsanaya oo raba inuu ama siyaasad raadiyo ama abaabul sameeyo laakiin ku dhahaynayo ilmaha banaanka geysanaya marka ilmaha banaanka geysto yani muxuu usoo diyaar garoobaa inuu wax qaribo ilmihiiga banaanka geysanaya si aan siyaasadda waddanka uga qayb galo ilmaha banaanka geysanaya waa usoo laabanaya oo kule markuu soo laabto yani beernax male waxa uu ka fekeraya male qoluu meeshan ka degan yahay anytime uu iska tegi karaa wuxuu rabuu samayn karaa laakiin dadka uu taladooda gacanta ninkaas gashaday ama ninkaas oo taladeedu iyo masiirkooda wax ku leeyahay dadkaas doqomaa soomaa absolutely ha waa dadkan la raba inay baraarugaan oo ay soo jeestaan oo ay qofkii wax u dhiibanayaan ka fekeraan hadda wax dadka dan u ah tusaale hadday dadka wacyi gashan yihiin wax dan u ah markay dowladdu soo hadal qaado ayaga dhan waa soo bixi lahaayeen way taageeri lahaayeen way ka qayb qaadan lahaayeen laakiin hadda wixii danta u ahaa waxaa looga dhigayba waxaan jirin oo aysan ayaga lagu dhibaataynayo oo danta iyo mustaqbalka laga sugi karo nin aan waddanka ku noolayn oo aan ilmihiisa ku noolayn danta iyo mustaqbalka aad adigoo waddanka degan ilmahaagii iyo ku nool yihiin iyo waalidka iyo walaalka mustaqbalku ninkaas ku haya muxuu yahay ma jirta yaalo hadda dastuurka waxyaabaha ugu dambeeya laga bedelayo xoogaa soo jiidasho lahaa waxaa ku jirtay dadka xilalka sare qabanaya purely inay Soomaali yihiin dhalashooyin kala hadday haystaanna ay celiyaan naaga ajnabi aysan qabin waxaasoo dhan marka xoogaa wixii hore waa ka duwan yihiin waxbay saacidayaan laakiin kuraasta hoose oo dhan ama xildhibaan ha la noqdo ama golo deegaan ha laga qayb qaato ama aniga waxaan jeclaan lahaa in la yiraahdo dadka waddanka joogo oo deegaanka ku ah unbaa noqon karo absolutely nin oo magaalada banaankeeda degan xildhibaan golo deegaan kama noqon karo xildhibaan federaalna kama noqon karo in la dhaho sideedaba xuquuqda muwaadinimada waa deegaanka waa deegaanka hadda wadamada Yurub ee lagu nool yahay xaafad aad degan tahay degmo aad degan tahay haddaad ka guurto degmooyinka qaar kala sharci ah degmo aad u guuraysa adoo muwaadin ah degmadaas muddo inaad deganaatid waaye si aad u codayso oo golo deegaan u doorato marka waddan aadan deganayn oo aan xoolo ku lahayn oo aadan tala ku lahayn inaad siyaasadiisa masiirka ummadda ka qayb gasho waa wax Soomaaliya un ka jira meel kale oo adduunyada ka jirto ama laga soo helayo ma jirto wili xataa inaanan ku baraarugsanayn inaan bedelno mushkilad kale waxaan waa dhici karaan way jiri karaan waa la soo wada mari karaa laakiin inuu baraarug jiro waxaan in la bedelay inaan u baahannahay oo kale in fiisa lagu joogo waddanka oo ninkii baasaboor ajnabi wataa fiisa la siiyay markuu Soomaaliya imaanay haddana siyaasadda waddanku qayb ka yahay xataa baasaboor Soomaaliya ma qaadan yaa ma jirto kuwa badan oo waxa arkaysaa ayaan laba oo fiisa ama waa wasiir ama waa xildhibaanba airportka wuxuu ka baxaa asagoo baasaboorka dalkii uu ka yimid wata xagga markuu tagaayo asagoo muwaadin oo adiga kula mid oo soo galaya yani annaga waxaan nahay suuq ama Dubai ku yaala ama China ku yaala oo laga soo shaqeysto oo marka fasaxa la soo aadayana guriyahooda la iska aado camal waa Soomaaliya marka siyaasadeeda fiirisid sababtoo ah qof kasta xataa qofkan baasaboorka haysto ajnabiga shuruucda waddanka ku xadgudbaya wuxuu ku xadgudbaya deganaanshaha uu saaranayo xataa ma raba inuu $1 bixiyo wuxuu rabaa systemka dawladda inuu inta isticmaalo dawladda u shaqeeyaa warqad ah qorto immigrationka tago in free loogu saaro wiyar $1 xataa bixin barnaamijkan oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaa oo kaliya barta YouTube-ka ee Ha Noolaato mahadsanid